واتهاي إمكانه بلابننا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقعي قوة فتحية عبسية داوديال كسو دوادا برنامج كيتو دباد لها أها Somali Women Global Network Presents أما وذا هذا واحد دباد كان مرتينوغو وسيرة هوينكا يحقوق آذنها دلك الصوماليا مدن ديقا ياسين إيو أبوكاتها عانكا شرعي يقانكنا مقعيس اللي يراهدو تهليل حاجي أحمد waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay in ay maanta barnaamijka nagala qayb qaadanayaan sida aad ogtihiinba sawaxan iyo qayladhaan baa beryahanba socday arrin aad iyo aad la isugu haystay sharcigan qaynuunkan ku saabsan dembiyada kufsiga marka waxaa nala habboonaatay in aanu waxa horaa loo yidhi af jooga looma adeege aanu soo casunno wasiiradda lafteedii oo been abuur badan laga sameeyey iyo abukaatihii sharciga kaalinta aadka ugu weyn ka qaatay ee wax ka qoray hadaanuba wada qorin isagaa inoo sii faahfaahin doonee waxaa kaloo halkan inoo ku jira Maryan Sheekh oo ka mid ah isbahaysiga haweenka Soomaaliyeed Somali Women Global Network oo aan ugu yeedho gladiatorkayga waayo waxa weeyaan waa iyada qudheedu waa sharci qaanad arrimahan aad bay ugu xeel dheertahay UN ka soo shaqaysay difaaci barnaamij kanoo kale ahaa oo dawladda Kenya ay ansixisay dadkii wax ka abaabulay bay ka mid ahayd iyo difaacaha iyaga walaalkayo Cabdiraxmaan Daawud oo isagana aad wada garanaysaan I know dadkii haddeer ay soo gelgelayaan waynu iska sii bilaabanaynaa waqtigii baaba xoogaa waqti naga qaatay raallina naga ahaada zoomku waxa weeyaan dee meelo kala duwan marka la joogo waa isku halayn ma leho halkan marba meel bay ka yara baxaysaa marka haddeer aynu iska bilaabanaynaa wasiir deeqa yaasiin iyo abukaate tahliil xaaji axmed aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waqtigiina qaaliga ah waanu garan karaynaa sidaad mashquul tihiin ee aad na siiseen waqti dambena weliba way idin tahay ميوت كيس كسارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كقلب إذن تعملين أنا هبين بينات هاي مرك ماشي الله ماشي جوكتين إن رجينا إن أكو عافيمات قبطان شرف وين إيت هاي إن أنا إذن كلا سوق قالوا إن برنامج كان إن هذه هذا أورتو ما سنتين هوش أهيسين إيو runtii isxilqaanka aad isku xilqaanteen in bal aad u kuur gashaan hawsha waddanka ka socday iyo waxyaabahan maaragtay la isku haysto juhdi badanna aad gelisaan inaad fahamtaan isla markaana haddana aad sii raadisaan maaragtay arrimo information kale oo aad noogu yeerteen maanta marka intaas baa idinkaga mahadcelinaa aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan kaloo maadaama gabdho tihiin oo network ku jirtiin idinkana waxaan idinkaga mahadcelinaa hiiladiina sidoo kale walaalkeen Cabdi Daawud hiiladiisa iyo abukaat tahliil intaba waxa waaye arrimaha haweenka ma aha arrin kaliya ku saabsan haweenka kaliya waxa waaye raguna ma aragtay waa hiilo waxa waaye waa xuquuq marka intaasba waa intii idinkala soo shaqaysan waa ku mahadnaqaya inta anaga nagala soo shaqaysana sidaas oo kale marka sharaf weyn iyo aadan idinkaga mahadcelinaya anigana sidoo kale idinkaga mahadcelinaya dadaalka oo ku jirtaan in xaqiiqda la gaaro oo aan wax khalada la faafin teeda labaad dadka masaakiinta ee dhibanayaasha ah ee isugu jira gabdho iyo wiilalba qaarkood da'dooda yarta isna difaaci karin inay u istaagtaan inay helaan dhowris inaan lagu xadgudbin mar dambe masantiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin labadiinuba waynu iska bilaabanaynaa su-aasha ugu horeysa anaa idin weydiinaya idinkaa saa u kala qaadanaysaan I think su-aashani wasiiradday ku habboon tahay baan u malaynayaa su-aasha koobaad waxay tahay sharciga baarlamaanku buuqa ka sameeyey ma kii golaha wasiiradu soo gudbiyeenba waxay waa mahadsan tahay horta waxaan jeclaan lahaa inaan gadaal u noqdo sharcigan horta goormuu soo bilaabay sharcigan qoristiisa waxaa la bilaabay 2013
wasiiro kala duwan wasaaraddan way soo mareen wasiiradii bilowda waa wasiiradda hadda xildhibaanada ah isla markaasna wasiirka oo dhalinyarada isboortiga wasiir Khadiija Maxamed Diiriye kadib haddana wasiirad Sahar Cali Samatara wasaaradii la wareegtay iyadana hore bay usii socodsiisay aniga waxaan la wareegay wasaaradda bishii April 2017 waxaana ka mid ahayd arrimihii aan priority ugu horeeyay inaan ka shaqeeyo oo aan ilaa meeshaan gaarsiin karno gaarsiino abukaat tahliil oo ahaa sharciyaqaankii qoray taariikhdiisii asaa hadhow ka sheekayn doona ayaan maaragta u yeeray maadaama howshiisii ee 2013 dhamaatay ayaan waxaan ka codsaday inuu si maaragtay lacag la'aan ah ama waxa loo yaqaano pro bono uu maaragta arrinta igala shaqeeyo si aan anigana golihii u geeyo saas horta ay sheekadu ku bilaabatay shaqaduna ku bilaabatay asagana runtii oo na garab taagnaa asagoo haddana professional ah haddana howl dhamaatay uu maaragtay sii waday fursad ayaan u helay in aan golihii wasiirada ka aan ansixiyo sideedana runtii horta habraaca sharciga waxa waaye sharci markii aad soo cirinayso laba mid waaye ama waa mid hore u jiray oo outdated noqday oo waqtigiisii aan la socon karin oo dib haweyn aad ku suubinaysid ama mid aad asagoo bilow ah aad soo cirisay sharcigan waa sharci loo baahan yahay sababtoo ah dembiyo badan ayaa ku soo kordhay tacdiyada iyo dembiyada gabdhaha iyo caruurta iyo laga galo oo sharciga ciqaabta oo 1960kii iyo la curiyay uusan dabooli karin dembiyadaas haddaan si u dulmaro abukaat tahliil ayaa iiga dambeyn doona waxaa ka mid ah oo kale markii kufsi dhaco dhibanihii dhibaato loo geysto oo maaragta maanta waxa loo yaqaano social media ama YouTube-ka la geliyo oo qofkii maaragta dhibaatadii korka ka gaaray physicalki ka gaaray ay ka badan tahay midda maaragtay videoha la isla dhaafsanayo marka sida maaragta dembiyadaasay dhacaayo loogu helo ciqaab ayaa dhalisay in sharcigan la curiyo sideedana sharciga markii wasaaradda ay geynayso wasaarad kasta waxaa loo baahan yahay ugu horreyntii in xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda federaalka la marsiiyo asaga maaragta uu dib u eego wixii maaragtay inay shareecada islaamka dastuurka iyo shuruucda waddanka ka eego kadibna waxaa loo soo gudbiyaa golaha wasiirada waa loo qaybiyaa muddo 2 wiig ah 2 usbuuc ayay qaataan dib u eegis ku soo suubiyaan wixii ayagana ay kadibna waxaa golaha ayaa la keenaa waxaa ka dhaco gorfayn iyo maaragtay iyo in laga wada hadlo kadibna codkaa loo qaadaa sharcigan isaga ah 31 bisha May 2018kii ayuu maaragtay soo loo codeeyay 22 wasaaradood meeshii joogtay u codeysay si aqlabiyad leh kadibna June 2018kii bishii saddexaad maalintii saddexaad oo golaha shacabka aan geynay sidaas markaas waxa ka dambeeya waxa waaye in oo maaragtay wasiirkii keenay wasaaradii keentay loo yeero ajendada la geliyo akhriska koowaad la geliyo akhriska koowaad markuu dhamaado waxaa lagu wareejiyaa maaragtay wasaarad kasta sida maaragtay dowlad wanaagga waxa waaye wasaarad kasta waxaa maaragtay korjoogteyn ku leh guddiga golaha shacabka iyo kan aqalka sareba annaga wasaaraddeena waxaa mas-uul korjoogteyn nagu leh guddiga xuquuqul insaanka jinsiga iyo arrimaha bini'aadamka ayagaa marka loo gudbinaya akhriska koowaad markuu dhammaado markii loo gudbiyo kadib waxay suubinayaan wareysi dowladeed wareysi shacbigii bay haddana mar labaad ay consultation la gelinayaan wasaaraddii iyo looyaradii qorena way la fadhiistaan kadib baarlamaankay kusoo celinayaan way ka doodayaan kadibna way u codeynayaan aqalka saruu aada intaas iyo in lamid ayuu soo galayaa si ilaa ugu dambeyntii madaxweynaha uu u tago madaxweynahana markaas asagana uu markuu ku qanco uu maaragtay saxiixiisa saaro horta sharci dejintu waa sidaas marka sharcigan maxaa ka qaldamay
sharcigan waxaa ka qaldamay 2017 culummada ayaa qayladhaan ka suubisay waa lala fariistay abukaat tahliil waxyaabihii ay soo gudbiyeen wixii maaragtay laga qaadan kari waa laga qaatay waxyaabihii aanan la socon karin dastuurka annaga hadda aan ku dhaqanno oo kumeelgaarka 2012 waa dastuur waafaqsan shareecada islaamka dastuurkaas wax alla wixii ku jira macnaheedu waxa waaye wuxuu waafaqsan yahay shareecada islaamka oo maaragtay u ah saldhig maaragtay wax alla wixii la qabanayo sharciga iyada markii sidaas ahayd laakiin haddana Soomaaliya waxay saxiixday axdiyo caalami ah adduunkan wax la wadaagnaa Soomaaliya jasiirad kaligeed u taagan ma aha adduunkay ka tirsan tahay waxaa jira axdiyo oo UN-ka iyo African Union iyo kuwaas Soomaaliya 70-yadii 60-kii 80-kii 90-kii 2000 kuwaas oo dhan la saxiixay oo international law la yiraaho oo dawladda Soomaaliya ay qasab ku tahay inay xaqiijiso so intiba markii ay dhacdo waxaas ayaa la isku fiiriyaa shuruucda waddanka haddana 2018 markii la damcay in la soo celiyo haddana mar labaad waa lala shiray waxyaabihii marka aanan laga qaadi karin kulley abukaata ayaa sheegi doona laakiin sharciga dambiyada jinsiga oo ah kii xukuumaddii ay soo wareejisay ma uusan helin fursad akhriska koowaad uu ku galo waa tahay marka waxaan u gudbinayaa haddeer maryan sheekh oo su'aal qabta waxaa laga yaabaa su'aasha in ay guud martay wasiiraddu already laakiin bal maryan baan u dhiibayaa maryan sheekh aad iyo aad baad umahadsantihiin waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasiiradda iyo abukaataha oo maanta maxayda waqti nala qaadanayaan farxad weyn bay ii tahay wallaahi waa fursad qaali ah maasha allah marka su'aashan aniga qaba waxay ahayd hanaanka ama processka iyo tartiibta la marinayo markii la dejinayo ama qaanuun ama sharci ama xeer waxaan malayn waad koromartay oo su'aasha ku xigtana ay ahayd kan ma la mariyay maxaa qaylida keena haddii uu maray intii stepskii laga rabay tillaabooyinkii laga rabay haddii la mariyay qaylida maxaa keenay marka maadaama tii aad kormarisay haddii aad wax ka tagto waa noogu celin kartaa abukaatahana malaha wuu noo kormari karaa waxaan ku sii dari lahaa dad ama shareecayo kale ama xeerar kale ama dad jiiraanka ahaadaan ama dad anaga aan wax wadaagno deen Soomaali aan nahay dadaan diin wadaagnaa kaba soo qaad jiraa ma jiraan dad aad la kaashateen la tiigsateen ku tiirsanaateen sidii benchmarking yani ingiriiska lagu dhahaa camal yani bisu'aasha yani qaanuunka la u barbar dhigteen ama aad wax ka soo qadateen waan ogahay waa la isweydaarsadaa qaanuunada wax baa la iska qaataay marka yani waxaan weydiinayaa kuwa aad ku tiirsaneedeen kuway ahaayeen shukran inta horta qaanuunka iyo in wadamo kale lagu barbar dhigay abukaat tahliila ka hadli doono midda aan jeclaan lahaa inaan kusoo laabto waxa waaye goor la maraayo November 2019 xukuumadda 3 sharci ayaa loo soo celiyay 3daas sharci laba waxay ahaayeen kuwa qaanuunka maray oo akhriska labaad lagu soo celiyay sida uu xeer hoosaadka golaha shacabku dhigaayo sharciga waxaa la soo celin karaa markuu akhriska koowaad ka gudbo sida qaanuunkooda uu sheegayo sharcigan November 2019 yaa la soo celiyay waxaan ogahay December 2019 in group oo xildhibaano ah ay motion ka keeneen motionkina ilama ah ilaa ay hadda in la aqriyay kadib gooray 2020 August tahay ayaa golaha shacabka waxay keeneen sharci loo yaqaan sharciga galmada xildhibaanada ayaga ayaa diiday oo sidooda u diiday marka horta dadka waxaan jeclaan lahaa inaan u kala macneeyo sharciga galmada iyo sharciga dambiyada jinsiga ee xukuumadda keentay way kala duwan yihiin soo marka qaarkood dadku waa isku qaldaan sharcigii ay ayaga keeneen baarlamaanka asagoo sharcigii xukuumadda yaallo waa sharciga galmada xildhibaanada ayaga ayaa diiday runtii haddana meel iska yaallaa sharcigan runtii baahima loo qabaa 100% waa loo qabaa
maalin kasta waad maqashaan waxa waaye annaga dad waxaan nahay dadka la mid ah dhibaatooyin ayaa jiro maalin kasta dhegihiina ku maqashaan wax qarsoon ma aha sharcigaana runtii waxa waaye sharci xukuumad keentay habraac dowladeed ku soo baxay ma aha mid qol mugdi ah lagala soo baxay intaasoo meel ayuu soo maray marka baarlamaanka maxaa uga bannaan baarlamaanka waxaa uga bannaan habraacaas markii la marsiiyo in akhriska koowaad la geliyo kadibna guddigii wuxuu xaq u leeyahay ama wax inuu ku daro ama wax inuu ka laalo ama wax inuu ku kordhiyo intaba xaq bay u leeyihiin baarlamaanka 276 xildhibaan ayaa oo sharaf leh ayaa ku jirta oo matala shacabka kuwaasoo ay fursad ay u tahay in ay maaragtay ka doodaan dad diinta yaqaano oo ku xil dheer ayaa ku jira waxaa ku jira looyar dhaqaatiir baa ku jirta dhinac walbaba ka eegi kara runtiina dimuqraadiyaddu waxay ku wanaagsan tahay marka fursad qof walba la siiyo maadaama matalaad ay jirto inay wax ka dhahaan waxa waaye inuu jiro meel dadku ay maaragtay ku doodi karaan fikrado isku dhaafi karaan fikrado isla qaadan karaan qaar ku kala duwanaan karaan taas ayaa ah dimuqraadiyadda marka laakiin sharciga runtii aad iyo aad loogu baahan yahay indhaha kama xiran karno annagana runtii wasaarad ahaan iyo aniga wasiirad ahaanba markii la ii magacaabay jagadan runtii waxaan ilaahay hortiis ku dhaartay inaan dadkaas dhiban iyo shaqadeyda inaan guto shaqadeydiina waan suubiyey shaqadii wasaaradda howlwadeennada intaba marka taasna runtii saan hore u sheegay marti kama ihi shaqo waxa waaye la ii doortay oo aan maaragtay ilaahay ii siiyey fursad inaan ku shaqeeyo sharcigana runtii waa loo baahan yahay indhaha lagaskagama tiri karo laakiin sharci walba oo golaha shacabka gaaro waxa waaye siduu ku tegey iyo sida uu marka ugu dambeyso madaxweynaha markuu saxiixayo way ka duwan tahay waxyaabo badan ayaa laga bedelaa taasna waa caadi waddan kasta meel kastay ka dhacdaa marka horta xaaladdu waa sidaas arrinta kale ay weydiisay abukaat tahliil aan fursad siinaa waa mahadsantahay السلام عليكم. عليكم السلام. سيدا انت بروسيس قاري مرتاح. وزيرة دو صوت هابتي شرعيا كليا ما هرتو باهي اني جرتا والله قام مرمى. دنبيد الجنسي ما كي لو بحي كلمة ما حي الواح كوبان وحا. دنبيد الجنسي ادعى هو حقيقة او جرا wadadka Soomaaliyeed ama hadda garaadaan dalka gudihiisa ama dibadiisa ha joogaan lagula kaco waxa kamid ah videoga la isku duubay in la isu gudbiyo maxalliga cudurkan HIV-ga in maxalliga dadka si foolxun loo galo dadka qaarkood in inta la drogeeyo adoonsi jinsiyad lagu sameeyo wax dhici jira ma qaanuunka ciqaabta Soomaaliya wuxuu jira hadda 60 sano ku dhawaad dembiyadana intooda badan waxay soo ifbaxeen adduunyadana wada qaadatay ay ka mid yihiin dalal badan oo islaam ka wada mid yihiin inay xaantinimeeyaan joojiyaan waxay soo baxday kadib ay soo baxday weliba dhawaanahan ay soo baxday annaga maxaa intaas noo dheer dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay gabadhada lagu sameeyay dumarka iyo carruurta xuduuddu ka baxay waxa kaloo dhammaantiin qof kastaba xantiisa waa ogyahay Soomaaliya waxa Soomaaliya ka dhacayna waa la wada yaqaanaa xataa dadkii soo barakacay ee barakacayaasha ahaa dhibaatada loo geysanayay in lagu dhibaateeyo carruurtoodii iyo raggii qabay oo jooga dumarkan in la dhibaateeyo carruurta laftigooda la dhibaateeyo wax oo la siyaasadayn karana maaha maxaa la dembi kulli yom dhacayo waxa kaloo ceeb ah dembi ay geysanayaan si ula kaca dad Soomaaliyeed cid soo dirtay aysan jirin maxay la cid wax ka qabataan jirin in loo nisbeeyo dowladda kale si sharciga loogu iftiimiyo waxaan jirin aniga sharcigan waxaan voluntarily u sameeyay wax kala maaha uga kaalmeeyay wasaaradda iyo wasiiradii ka horreeyay wasaaradda hal shay kaliya ahayd waxay dhibaato dadka haysata ay lagama maarmaan tahay in inta sharci laga dejiyo xaaraantinimeeyo qofka geysta gobolfadka noocaas oo kalena tallaabo laga qaado sharci dejinta dastuurka iyo xeer hoosaadka baarlamaanka
si kaleer ay u sheegayaan sharci waxa wax la dhihi karaa markuu baarlamaanka aqlabiyad ku marsiyo sharci inta ka horeyso waa hindisa sharciyeed wasaaradda markay u gudbinayso golaha wasiirada lama yidhahdo xataa hindisa sharciyeed waxaa la yidhahdaa qabyo qoraal markay ansixiyaan wuxuu noqonaa hindisa sharciyeed marka horta sharci jira oo la baasgareeyo ma jiro maxaa yeele golaha wasiirada oo aqlabiyada markay isku raaceen ra-iisul wasaaraha ayay waajib ku tahay waxaana lasoo mariyaa ka hor intaysan aqbalin gariiqaanka guud ee dowladda isagaa ka fiiriyo inuu waafaqsan yahay dastuurka wuxuu ka fiiriyaa inuu waafaqsan yahay shareecada waxyaabo badana laga fiiriyaa sharcigan inta laga sheegay ee la naadiyey dhammaanteed been waayo wax diinta ka soo horjeeda kuma jiraan wax dad kale laga soo xigtana kuma jiraan waxay dad muslimiina qaadanna kuma jiraan maxaa la xaaraantinimey marka waxaa la xaaraantinimey wax shareecada islaamka laftigeeda ay xaaraantinimeynayso maxaa ka mid a marka habraaca la maray ee haddana iyadoo aan la marin la bilaabay in gabodfal iyo aflagaado loo geysto wasiirada dadaashay oo ugu dambeyntii iyo kuwii hore ka horreeyay xataa cayada way gaaraysaa oo hadda la caytamaayo maxaa yeele dhib jiray ayay u kaceen ayagoo dumara inay wax ka qabtaan wasiirana ah dhibkii jiray markay wax ka qabanayeen kuwii hore waxay ku guul daraysteen iyadoo sanoo kale looga wada hor yimid inay marto golihii wasiirada ugu dambeeyey jiray ayaa la horgeeyey waxay isku raaceen si aqlabiyada marka sharciga lagala soo tashaday culummada lagala soo tashaday dadweynaha ra'ayaasha la soo jeediyey intii uu socday qabyo qoraalka dhammaantiis la waafajiyey ayaa waxaa dhacday in golaha wasiirada ay si aqlabiyada oo aan kala raarac lahayn xataa waxaan aqlabiyad buuxdo u leeyahay wax kale maaha wasiirada dhammaantood jooga oo isku wada raaceen gaar ahaan kii arrimaha diinta kii arrimaha garsoorka kulligood gaalamaya taas baa ka soo tagna wararka qaar aan macnaha lahayn ee meelaha laga sheego waxaan qof kastoo soomaaliyeed ku jaraynaa hal shay inuu akhriyo uu ka soo saaro wax diinta islaamka ka soo horjeedo taas waa kow erayadii la sheegay oo aan u arko inay tahay dacaayad aan ku qornayn qabyo qoraal aan ku qornayn sharcigan maxaa la yidhahdaa hindisa sharciyeedka baarlamaanka yaallo 2018 ilaa haddeer oo aan weligiis akhris koowaad la gelin ee lagu bilaabay dacaayadda oo lagu bilaabay cayda haddii hal kelimad laga soo helo oo aan shareecada islaamka waafaqsanayn wax qaldan waayo teeda labaad arrintan ku saabsan oo lagu warwareego shisheeyaa ka dambeeya kana ka wiilka hadda la kufsaday ma shisheeyaa kufsaday mase askari soomaaliyeed kufsaday gabdhaha carruurtahay maalin kasta la kufsanaayo waxaa geystay maxaa la yidhahdaa golaha wasiirada ee sharcigaas gudbiyey teeda labaad ma mas-uuliyad wadareeda mase waa mas-uuliyad qofeed marka golaha wasiirada oo awoodda labaad ee dowladda ah ay gudbiso sharci ay baarlamaanka weydiisato inuu ka doodo falanqeeyo ka saaro wixii la qaldan kadib uu ansixiyo dad ka baxay caqiidada islaamka ma aha 20 iyo dhowr wasiir oo si niyad samaana ay ku qanacsan yihiin iyo gariiqaanka guud ay u soo wada gudbiyeen wasiiradda daraafka waxaa ugu horreeyey 2 wasiiroo kale oo kulligood gabdhaha waxaa nasiib darra ah ragga wasiirada ah kuwii ansixiyey ma sheegayo kuwa ka hor imaanayo waxaa la yidhi shareecada islaamka yaa ayuha aladiina aamanuu idaa jaa'akum faasiqin binaba'in fatabayanuu qof faasuqa hadduu war idiin keeno iska hubiya qof kasta waraa lagu yiri wuxuu bilaaba cay sharciyeedka isagoo saxiixan oo ra-iisul wasaarihii hore saxiixay golaha wasiirada saxiixin baarlamaanku yaallaa asaga laftigiisa physically wasaaradda way haysataa wasiiradii shuqulka ku lahaa dhammaantood waa wada haystaan aniga midaan leeyahay waxay tahay wasiiradii go-aankaas gaaray ee gudbiyey ile hal wasaarad keliya ma gudbin karto sharciga golaha wasiirada dhammaantiis ku wada raaca waay hindisa sharciyeed ma gudbin karto
maxay la aamuseen marka aflagaadooyinkii darrada lagu samaynayo aadan uga That's a very good question. mid kale ku sii daraayo mid kale ku sii daraayo baahi uma jirta miyaa Soomaaliya in laga qabto dhibaatooyinka dhacayo oo jinsiga ah haddaysan priority lahayn way sharciyada kale laba maalmood intay baarlamaanka yaalaan loo wada ansixinayo hadday petrol ku saabsan yahay hadday balaayo kale ku saabsan yahay waxaa dadka masaakiinta aan isdifaaci karin protection loo siin laaya ma sidaasaa islaamnimo ah ma sidaasaa soomaalinimo ah qofkii sameeya ma la ciqaabaya oo la wasakhaynaya wax aad iyo aad looga xumaado wax laga argagaxana waxaa ah dhibaato jirta war annaga ma qabi jirin in si publika ah wiilasha ma qabi jirin annaga in wiilal macallimiin dugsi ay kursadaan Somaliland ay ka dhacdaa waxay ka dhacdaa maxaa la dhahaa Soomaaliya oo dhan waxay ka dhacdaa Puntland meel kastay ka dhacdaa ma dhici jirin taariikhdan sidaas daraaddeed wax ka qabad degdeg ay u baahan tahay maxaa yeelay dadka aan isdifaaci karnaa dhibaatada ku socotaa ama gabdha ha noqdaan ama carruur ha noqdaan ama kuwo waaweyn ha noqdaan war xeryaha barakacayaasha ah waxaa lagu kufsadaa ninka xaaskiisa hortiisa ajnabiga ka shaqeeya marka dagaalada sokeeye ay dhacayeen qabaa'ilka jamhuuriyadda isdagaalayeen barakicinta waxaa kow ka ahaa goormay bilaabatay barakicin noocaas oo kale waxay bilaabatay SSDF in kacaana lagugu abuuraa la yidhaahdo dumarka oo la kufsado wax inaan laga qaban miya aawo islaamnimadeena subxaanallah abukaate waxaan rabaa su-aal inaan dib ugu noqono and I think su-aashan weliba adiga abukaate kugu soo noqonaysa cabdo waxaan rabaa inaad weydiiso number 5 because su-aalihii kale way guud mareen already way ka hadleen number 5 waa su-aasha ugu muhiimsan waxa aynu maanta isugu nimi halkan aad iyo aad okay marka hore waxaan salaamayaa wasiir deeqa iyo garyaqaan tahliil labadiinuba aad baad u mahadsan tihiin waxaa kalaan aad ugu mahadnaqayaa Fatxiye Absiye iyo golaha haweenka iyo hablaha Soomaaliyeed oo aniguna aan ahay taageeradooda ugu weyn intaba waan ku faraxsanahay waxaan doonayaa idhaahdo aad baad ugu mahadsan tihiin ilaahay khayr ha idin siiyo dadaal badan baa ku jirtaan dhibaato badan baa idinka hortimi dadkana waynu naqaanaayo iyagoo waxba hubsanin ayaa kelmadda la yidhaahdo intay markiiba iyagoo qiiraysan intay la boodaan ayay dadka shaambadayaan dadka maagaan markaa bal maanta waxaanu doonaynaa in shakigii iyo madmadowgii badnaaye ku jiray meesha aanu ka saaro idinkuna aad baad ugu mahadsantihiin ilaahayna ha idinla garab galo aqbalaadda aad naga aqbashayna waad mahadsantihiin su-aasha haddaan u soo noqdo su-aashay shanaad waxay odhanaysaa arrinkaa aad ka hadlaysay bay la xidhiidhsan tahay waxay odhanaysaa dad culimo iyo caamaba leh ayaa waxay ku andacoonayaan in sharciga dembiyada jinsiga la xidhiidha uu xalaalaynayo raggu inay isguursadaan iyo inay sinadu xalaal tahay dad badan baa saa ku dooday arrinkaa maxaa ka jira maxaase dadka sidaa u hadlaya u soo jeedin lahaydeen waad mahadsantiin abukate horta waxaa run ahaantii nasiib darro ah aniga markaan sheeganaa caalim islaam ah ama qof weynaan ahay oo ka dhiidhiya wax qalad ku ah diinta islaamka marka hore inuu iska hubiyaa rabo waxaa laga yaabaa in looga sheekeeyey anu ma eedaynayo qofna si gaara laakiin waxaan eedaynayaa shareecada islaamka waxay faraysaa wixii la sheego in layska hubiyo faasiq hadduu wax kuu keeno faasiqaas wuxuu kuu keenay inaad iska hubiso waxaan garan waayey nimanka sheekhyada isku sheegaya qaarkood inay akhrin waayeen alma markay akhrinayeen wax looga sheekeeyey iyagoo maskaxda ku haya ay fiirfiiriyeen hal kelimad oo waxay sheegeen oo run ah ma jiro waxaa jira oo keliya in walwal sharcigaas tiraayo dadka masaakiinta gaboortalka lagu hayo waxaan kaloo idinkugu daraya aniga 40 sana waxaan ku jiraa mihanadan qaadiyaan soo noqday avocaataan soo noqday UN senior legal advisor soo noqday sharciyada waddanka laga dejiyo waxaa ka mid ah sharciyada ugu horreeyay dagaalada kadib la sameeyay sharciga anti-piracy act anaa daraaf gareeyay
waxaan kaloo diiday in dadka Soomaalida dibadda maxkamadaha lagu qaado caruusha lagu qaado dhowr iyo 27 sharci intooda badan aan xataa ku sameeyay tabaruc jiro waxaan ku ammaanaa wasiiradda halshi waxaan ku ammaanayaa waxay u guntatay inta liidata oo dadka Soomaaliyeed ee aan daryeelka lahayn ama xaalad ku sugan aysan dadka kula tartami karin in priority ka dhigatay si sharci loogu sameeyo waxa kamid ah midkan waxa kaloo ku jira dadka indhoolayaasha waxa kaloo ka jira kuwa kaloo ka sii badan commitment noocaas oo wasiiradii hore laftigooda waa dadaaleen oo sharciga soo bilaabay kan la xiriira maxaa la yiraahdaa dambiyada jinsiga waxa ka hor yimid dad aan waxba akhrin problemka Soomaaliya waxay tahay in la politicize gareeyo waxaan la ogeyn qofkana inuu ceebta ka xishoodo marka lagu beeniyo wuxuu ku hadlaa markii wax qoran waay maaha wax la qarqarin karo ayo su'aashaadi aad baad mahadsan tahay abukaate marka waxaadna leedahay haddaan follow up ku sameeyo dib ugu noqdo labadiinuba halkan maanta waxaad nagala wadaagaysaan in haba yaraatee wax ka jira in ay dadka isku jinsiga ah isguursadaan hadday yihiin dumar iyo hadday yihiin ragba aanu sharcigaa ka mid ahayn wasiiradda yaqaan kama suurtoodo qof muslim fadeexa noocaas oo kale inay meel ku qorto anigana igama suurtoodo aniga 70 sano ku sii socdaa ما شاء الله آدي أبدو محدثين سؤال تاكو حتى اللي ويدينا يا واحد هاي واحد كلو ليسلا نحكينا يا إن شرعي قالوا حلالين زنادة يما قلنا صح ولا هاي السنادة and سيدا إنه ابن هاي ندد مسلمين هاي حدي أنا ما عرفت الدين إنها تكون تخلصت الدين الإسلام كم بهني ده قف إسلام وده إلهي سبحانه وتعالى وحينه شيء قرآن كسينه وشيء إن وطلق لي الدين تندك عقل جود استعماله فكر كود استعماله مسكحده كذا شقيسية واحد نموذج مسكحده إننا دتك أي لاوين بمسكحده أي نقطي بلق ميلسك يالو عن الاستعمال بمحو قف كلا يري بينه كشقينا حتى مسومالنا هاي وإنه فهمنا كل جانو الدسنة وإنه أجنها يوريد شرعي بعد كياله أو ده يصير إلى هاي وقت كي سبحانه وتعالى إن العدايو سيدا كلي وحويان أفر قفنا يربطي يربدي يدونتي يسكتشرا ويقاوناي ميل بيس لسي قليا ويس هايستين ويسلو سارناي وحاصل مسعون مايان إيا إن أور وماشا كصبح ويكلي يسيدا الوعد دين كران مركا أوريدي تاوين أغنهاي حقاي كأتمي مركا شيكادن زنادي بو حلالين يا ويش أنيقو أن وحن سلايا وحي كتمي ما دابا مركا لا أخريو حدي قف أن أقولين وسيدي إمهور يا الله درت قف أن أقولين وحبنتي سترنك جليو وحجليو واحد دون تبعها هاته أما حبنتي سجليو وحلو قاضي يا دنبيا النوع عاسة ما هالكاسة يكتمي مسوا وح إسكده من الأول ولا إسكلا عرضي ما صرت صفة أنا وفهم وحرت سيدا ده هرت هالشيء أو كقلدنا جردت كان عن شرعية أقوى سيدا اللغة وحكى غلطان قضب كواد وحركة عقابة الصومالية وحقرأ وحل principle of legality principle of legality وحيتهاي وحن شرعي كو قرنين حاران لقى مرقى كارو قفنا لقم عقابك فالك الدنبقى وإن العدايا شرعي الحديث فالك الدنبقى نوعه يهي إن لقروا لعل أنا مركان توقع قلاي وإن قاطع شيء جوران أو قف كلليه ما كان برعدني ما قلاي شيء جوران وقف كلليه إن الحقوق وقعت مركا كفس اللي قاعد لاي وإن الشجع نوع كفسك هديك اللي قالت ما لما عقابك رفل عن توس قانون كله فلالك شيء جايان ويهندسين أمام الأولين أما جعلهن إن لقوا عابة يستوى وزير دام عد كستوى كدام ليس شرعي قاس يكون ريبة كما قرنا بيننا شيء بين واضح شيء قفينا كقلين بدنا أقعدين رياض النوع عسوا كلاه لمنك علماء ده اسكو شيء جاي
diinta islaamka horta sideed ahaan ma qabto ilaahay iyo qofka addoonka ah wax u dhexeeya ma qabto nimanka bartay dadka inay gaaleeyaan nimanka bartay dadka inay aflagaadeeyaan ayagoo iska dhigaayo in ay yihiin maxaa la yidhahdaa amiirulmu'miniin horta weliga dowladda soomaaliya ah dowladda islaamka waaliga waxaa ah ra-iisul jamhuuriyaha iyo xukuumadda iyo baarlamaanka nimanka weliyada iska dhigaayo waxaa samaynayo ay isku xishoodaan shareecada islaamkana waa yaqaaniin tafaariiqna ma laha shareecada islaamka weliba islaamka muslimaan nahay xataa sunno iyo shiico iyo gadaalay ka soo baxeen muslimnimada ma qabto waxaas la sheegayo muslimnimada ma qabto tacdiyada dad laga dhowraa jira xataa laga xishooda dhaqan ahaan war gabar soomaaliya ee dadka dhiban ee masaakiinta carruurta la kufsanayo intay dadaashay laba wasiiro hore laga soo diiday ama lala socodsiin waaye la wadi waaye sharciga ay ku guulaysatay inay ku qanciso weliba iyadoo dadaalaysa dadkan waxay aaminsan yihiin sidood ahaan sharci marka la qorayo in lacag lagu helo wasiiradda sharciyo badan ay samaysay aysan wax lacag u ahayn ilaahiga qaadirka ajra ka siiyo maxaa way u baahnayn dadkaas in loo sameeyo aflagaada xunana loo geystay halkay ogaanayn mid waayo markaad gasho dembi oo publicly qof kale aad aflagaadayso adduunyada meesha la doonaa lagaa dacwi karaa waxaan leeyahay hadda qasadkeeda kolley iyo kolley ma aha inay aargoosi samayso xaqayna u leedahay maxaa yeele sharciga waa yaallaa sharcigan dhihi qabyo qoraalkii waa yaallaa weli sharci ma naqan dadkii inay saxaan wax ku daraan wax ka dhimaan la rabayna ma shaqayn caayay ay galeen waa ka xumaa allaha toosiyaan alle اللهم آمين اللهم آمين عادي يا بعض ما تسنتهاي أبو كاتب تهليل ما شاء الله قف نحريستو أي دوشيس يكرامة كم مقتبات هاي وعاد مدة كيني سندد ما أنت عاد إنه ويراتي إلهي وحن كبرينو بريها نوكاد دايو عمري راجي عافمات سريع عن نفسي والله رنتي وادي قيريسي سي مالتي هوري ما كان داودي ورايسي قاعنا عاد بانو قيرو دي حديرنا انت عاد هاللي سجلي عاد وشي دو كسوتش تشبيسي وايو واحد مدة كي inayba ilaaween bageeridii iyo qabrigii yaraay madooba la iskaga imanayay subhanallah su'aasha lixaad baan jeclahay maryan ay su'aasha lixaad adaa iskale inaad weydiiso wasiiradda aad baan mahadsantihiin waliba abukaata taxliil ilaahay ha ku khayro ma sha Allah carabkaada ilaahay ha noo ziyaadiyo ha noo ka daayo xaq baad ku taagan tihiin arrimahan waa arrin loo baahan yahay maxay ahaday qaanuunkan ama xeerkan laakiin hadda waan aragnaa dagaalkiisa ilaa dagaalkii oo intaasoo sano la isku dayay in la joojiyo baasmarintiisa ee hadda maanta ay tagtee maxay ahaday in shaksi loo maaga maxay ahaday wasiiradda shaksiyaadkeeda wallahi annaga dhan haddaan dumar nahay iyo intii damiir lahoo dhan oo bini aadan ah arrintaas aad bay maxay u dambaysay marka maxay ahaday aniga yacni su'aasha aan kale aan watay maxay ahayd horta arrintaas oo arrin dani ah oo arrin aan aragnay dambi weynna tahay adiga shakhsiyan maxaad dadka hadda ka dhihi lahayd maxay kula yihiin wadaadadaas intay soo urursadeen beenta intaas la eg maxay ahaday dhiseen faafiyeen muslimkii dhan cabsiyeen oo aad muddo ummadda Soomaaliya haddaad fiiriso commentka ay dhalinta qori hayaan waa wax wali meeshay ku dhagan yihiin halkii ayada ay ku dhagan yihiin afjooga looma adeegaa la dhahay labadiinii waa kan arrinta maxay ahaday hoggaanka u ahaa laakiin meeshii iyada ii tilmaan way dadkeena ii tilmaan maqashii maxaa la yiri inta un baad maxay ahaday muddo laakiin yacni khaas haddii aad okay ku tahay in aad yacni noo sharci karto wixii ay kula ahaydisay iyo dadka say kula yihiin because wadaadka asaga beri ruux intuu soo hor istaago waxaan la yaabanahay siduu u dhihi doono daniga diinta islaamka waa dembi siduu u dhihi doono su'aasha aniga aan la yaabana culimada diinka weydiinaya waxay berito sidee noo dhihi doontaan dani waa dembi wasiir deeqa waa ka hadalkeedaan maqli haynaa sidee beri ay noo dhihi doonaan taasoo kale laakiin adigoo raalli ah arrinta adiga shakhsiyan kuugu soo foorarsatay wasiiradda haddii aad okay ku tahay waaye su'aashaas dadka maxaad ka dhihi lahayd maxaad ka tiri maxaa ilaa ay hadda arrinta adiga idinka maxaa idin dhex maray horta hal shay oo dhibaato ahaa jirta
dooda noocan oo kale ah oo qaawan ma dhici jirin golihii wasiirada markay isku raaceen wasiiradda xaq ma laha inay gudbiso waxaa xaq u lahaa ra-iisul wasaarihi haddii xilka laga qaaday nin kastoo taga haddii la caynayo soomaaliya kulligeed politician waayo nin kastoo adigana meel dhigo markaad tagta in lagu caynayo taas waa kow aniga nasiib wanaag shaqo dowlana ma rabo xildhibaanna ma noqonayo xafiis dowlana kama shaqaynayo waxaan ahay abukaata madax bannaan laakiin dadka jagooyinka qaranka raba inay qabtaan ma kuwa hadda haya iyo kuwa hadda raba inay golaha wasiirada maxaa leedaha iyo baarlamaanka soo galaan doorashada soo socota hal shayaan u sheegaya nin kastow iska ilaali nin tegay caydiis wasiiradda waxa ku dhacay waxay tahay khayraa la cayo waayo marka runta loo soo dego asagoo maqan oo shaqo dowla ku maqanaa xilka laga qaaday aniga taas aniga politika ma gelayo laakiin hal shayaan sheegaya intuu jooga maxaa loo hadli waayo 2018 ilaa hadda adaan noo soo gudbiya sharcigaana maxaad u soo gudbisay maxaa loo dhihi waayo wasiiradii go-aanka gaaray aqlabiyadda ku gaaray hal ka mida muxuu u hadli waayo waxaasay ku sheeganayaan inay yihiin mas-uuliin way wada arkeen kulligood waxaasoo dhan inaysan ku jirin oo ogyihin marka waxaa nasiib darro ah burburka horta dhibaato noo keen annaga 1960 xorriyadda qaadan 60 sano ka soo wareegatay 60 sano ka soo wareegatay wax allaala waxaan dhisannay iyo wax allaala waxaan hagaajisanay waxaa burburiyey dagaaladii sokeeyey What's going on? Bismillah ar-Rahmaan maaha waa dhacba aniga dhexdeeda Okay. marka waxaan rajaynayaa insha allah ilaahayga qaadirka ah inuu toosiyo dhammaantood waa u ducaynaya anigu markaan dhahay falalka ay samaynayaan waa lagu dacweyn karaa qasab maaha inaan dacweyn laakiin hadday qasab noqoto way noqoneen adduunyada meeshay ka tagaan waa lagu dacweynaa qof kastoo falkaas ka qayb qaatay laakiin waxaan leeyahay oo maanta leeyahay oo laga faa'iidaysanaa forumkan ka jooga waxaydaan hubin caddayn karin inaad dadka ku aflagaadisan Subhanallah. mid labaadna ka joogsada in iyadoo loo hilinayo dad masaakiina ajnabiga wata inaad dhahdaan diinta islaamka qofaa ka leedihiin male ilaahayna ka cabsan waa mahadsanta saasaan ku leeyahay aad iyo aad baad mahadsan tahay abukaati tahliil su-aashan waxaan weydiinayaa wasiir deeqa su-aashan waxay tahay mar walba waxaad maqlaysaa su-aalihii badankoodii aanu soo diyaarsanay waad wada guud marteen mar haddii la guud marana oo su-aashii already laga jawaabayna waxa weeyaan dib in loogu noqdo maaha marka waxaan jeclahay su-aal inaan ku weydiiyo wasiir deeqa had iyo jeer waxaad maqlaysaa oo dadkeenu ay u badan yihiin in aynu iska leexino mar walba wixii mas-uuliyadda la odhan jiray oo aynu iska dulqaadnay wixii mas-uuliyadda la odhan jiray oo mar walba haddii maaragtay maalin dhaweyd baanu ka hadlaynay program saase haddaad qof soomaaliya tirahdo yaa tahay ama qabiilkiisu sheeganaya ama magaaladii uu ka yimi buu sheeganaya qabiilka ugu soo horeeya horta dhacak reer hebel aan nahay ama nin reer hebel aan nahay marka wadar baynu badan nahay wadar waana sababta keentay inaynu sida ariga isdaba gallo oo qofna aanu maskaxdiisa isticmaalin oo dhan maxaa qofkaa loo maagaya maxaa waxaa loo sameeyey maxaasaa loo yidhi tolo what's going on uu isweydiiyo caqligiisa dee maskaxdiisa uu challenge gareeyo waana ayaan darrada inugu habsatay haddaynu nahay soomaali qof waliba ama qoyskiisa ama qabiilkiisa ama asxaabtiisu waxa uun ay yidhaahdaan unbuu la jaan qaadayaayo ma rabo inuu yidhaahdo tolow waayo maxaa waxaan loo leeyahay ama maxaa waxaan loo yidhi ama bal aan baadho iska hubiyo waxan inta badanna waxaad maqlaysaa wax walba inaynu dhanahano maya soomaalida kama suurtoodo maya soomaalidu ma samayn karto dad islaama baanu nahay oo de haddaynu dad islaama nahay ila wanaaguna ma qarsoomo xumaantuna ma qarsoonto maantana dhulkii aynu u dhalanay waynaga og waxa ka dhacaya waddanka keliya waxaan odhan karaa haddaan dembiga iska dhowro oo aan hubaa maanta qofka dembiilaha ahi intuu dembi guudoono geysto ama qof ha dilo ama qof ha kufsado ama ilmo yar ha xoogo wuxuu doono ha sameeyo shaarkiisoo cad oo nadiifa oo waddadaa ka baxayo waa dhulkaynu u dhalanay ya adduunka way ka dhacaan waxani maaha inaanay ka dhicin laakiin qofku markuu dembi galo inta badan waddamada reer galbeedkaan joogno dadka ugu soo horeeya kalarka soo qabanaya waa qoyskii uu ka dhashay aabbihii hooyadii
ayagu ilmaadeer iyo ehel iyo maba isticmaalaan waa ka kaaftoomeen cid lacag isugu dardaraysa iyo cid u hiilinaysa iyo wayba ka xishoonayaan inay qofkii dambiilaha ahaa difaacaan ya inagoo laabta u wada tumanayna ayaynu qofkii difaacaynaa dambiilaha ahaa markaasaa la odhanayaa dowladdii inta laga xuyuubiyey xilkii ayaa qof waliba odhanaya qofkaygii haddada ha naloo soo daayo haddii dumar la kufsado dan kama lihin haddii gabdha la dilo dan kama lihin haddii carruur la kufsado dan kama lihin maanta waxay maraysaa fusuqii inuu ooda soo goostay soo fatahay markii waxba laga qaban waayey oo inamadii yaryaraa la kufsanayo sheekooyin waxaana soo gaadha kolley waad la socotaanoo dee idinkaaba groundkii jooga dee aad yaxyaxaysid waxa ka dhacaya inamadii ay ka badan yihiinba hablihii kufsigoodii laakiin la qarinayo inta badan marka maxaa keenay sababtan ah ma ajnabi baa lacag ku bixiya ila meel walba hadda waxaa maraysaa hay-adaa lacag ku bixiya in la kufsado wax hay-adaa ka dambeeya waxaanaan lahaan jirin siduu tahliil sheegay waxaanaan lahaan jirin ayaa naloo soo gudbiyey lacag baa lagu bixinayaa mashruucyaa la wataa adiga maqlayaan leeyahay mashruucyaa naagtani soo qaadatay oo ay lacag ku qaadanaysaa inay khaniisnimada iyo qoomaluudnimada dalkaygii keento oo dadkaygii u keento oo nakhasiisiso ayay sheekadii maraysaa waan dheereeyey waxaan doonaya inaan dhinac walba ka eege ma dad baa inagu dhex jira inoo soo lacag ku bixinaya inaynu iskufsanno inaynu isdillo inaynu isbaabiino hadday inagu dhex jiraana maxaynu isaga qaban la'ana horta waa mahadsantahay miyuud baad saamtay wasiiraddan ku horraysiinayaa abukaati taliil adoo soo weliba aan dheeraynay haddaad doontana waa u dayn kartaa tahliil aday ku jirta maya horta saa sheegta waaye runtii dadka soomaaliyeed dhibaato badanaa jirto sharcigan hadda oo maaragtay galmada markii la keenay dhalinyaro badan social mediaha dad badan ayaa diiday oo ka dhiidhiyey markii kan la soo celiyena dhalinyaro badan oo weliba u badan dad da'yar ayaa intaas maaragtay isla wareegayo oo sheegayo oo leh annaga maaragtay tacdiyadu waa jiraan shuruuc baan u baahannahay hala marsiiyo xildhibaanadii inay maaragtay wax ka qabtaan gabdhihii 25% xildhibaanada fadhiya iyo ragga intaba oo dad badan oo cabdi daa'uud iyo abukaat tahliil oo kale oo maran ayaa jiro oo tiro badan intaba marka maxay yihiin ma mashruuc bay soo qaateen ayaguna waa iyaga dhahaya maya sharcigii waa loo baahan yahay dhahaya ha noola marsiiyo discussion ha la geliyo ayagana marka ma barihii social media lacag ku qaateen waxa waa runtii way sahlan tahay hadalkaas in la isticmaalo laakiin xaqiiqda waxay tahay sharcigan waa loo baahan yahay sida kan oo loogu baahan yahay gudniinka sida kan sharciga carruurta loogu baahan yahay intaba ma fahamtid marka annaga qof walba waxaa muhiim ah in intuu iska daayo sheeg xiriirka hebel baa mashruuc ku qaatay iyo hebel baa saas yeelay inuu yidhaaho inuu shuruucda aqriyo dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin wax inaan aqrino in waxa la aqriyo waqti la geliyo wax walba waqti in la geliyo u baahan tahay dhalinyaro badanna waa jirtaa oo runtii hebel baa yiri qof mas'uul ah baa si xun u hadlay hadalkii iska wadaaya annaga 30 sano waxaan soo marnay burbur badan nagu dhacay burbur iskuulaadkii nagu dhacay burbur ku dhacay maaragtay dadkii iyagoo kala fikrad ah haddana inaynan maaragtay caqiidadoodii la aadin oo diintii bay kasoo horjeedaan la dhaho dadka soomaaliyeed waxay ahaayeen dad maaragtay geedaha hoostiisa garta ku qaato oo wada doodo ayay ahayd haddana sidii oo kale waay waxaa loo baahan yahay in la iska daayo mashruuc baa la qof wataa qof baa dan kale qof dan kale maleh aniga personally magaaladan muqdisho aan iskool ku dhigto kusoo koray maaragtay reer la yaqaano oo maaragtay sharaf leh ka dhashay ilaahay wuxuu ii siiyey fursad inaan wasiir ku noqdo haddana ilaahay wuxuu ii siiyey fursad inaan waqti badan joogo oo aysan hore u dhicin fursad ilaahay wuxuu ii siiyey in golihii wasiiradii ay baasiyaan sharcigan marka intaas ayaa israacday mas-uuliyaddeediina waa ka soo baxay
inta dad walba qaar badan oo Soomaaliyeed oo maaragtay golaha iskula jirnana sidoo kale mas'uuliyadoodu ka soo baxay laakiin wasaaradda maxay wasaaradaha kala duwan tahay wasaaraddan waa wasaarad haween xuquuq haweenka hadasho xuquuq carruurka hadasho most importantly xuquuq haweenka hadasho way dhib badan tahay wasaarad wasiir kasta ee yimaada intaani in la mid ah ya aniga hadda tii ugu darnayd baa igu dhacday laakiin haddana dad badan dadkaan codka lahayn aan u hadlayaa oo ilaahayna igu ogyahay waana waxaan u dhaartay laakiin waxaa ogaatiin berrito idinka qaar idinka mid ah hadday wasaaraddan qabsada ay soo galaan culayskaas waa maraysaan sababtoo ah very sensitive issues ayaa wasaaraddu ka shaqaysaa waxyaabo laakiin u baahan in discussion laga galo in laga heshiiyo ayaa inta badan waxaa leeyahay maya lagama hadli karo laakiin wasaaraddu waxay haysaa shaqo badan wasiir kasta aad soo dhaafay gabdho badan oo sharaf leh oo shaqooyin badan oo maanta aniga meeshaan joogo la'aantood iyo shaqaday soo qabteen haddaysan ayaga joogi lahayn aniga intaan kasii wadi lahayn haddii la igaga dambeeyana intii aniga aan keena kasii socodsiinayo qori isku dhiib waayo ya laakiin culays ayaa mar walba saaran waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay platformkan ay create garayseen inuu noqon karo platform arrimahan looga hadlo midda kalena in la isku hiiliyo gabdhuhu isku hiiliyaan raggu u hiiliyaan waa wax aad muhiim u ah shaqadan ma sahlana runtii 3 sano aan kasoo shaqaynayay wasiirro iga horreeyay haddaad waraysataan aad fursad maalin u heshaan inaadna soo wada gelisaan mid walba way kuu sheegaysaa culays baa jira laakiin waxaa loo baahan yahay in shacbigeennii informationka la geliyo annaga waxaan hubaa hadda idinka platformkiinni inaad sharciyaadkii qabyada ahaad u wada qaybiseen laakiin qof walbana inuu aqriyey uu dhihi karo walaa wixii la sheegay run maaha laakiin waxaan u baahannahay waxna inaan hubsano maka runtii maka 100 gooran ku soo celinayaa in wax la aqriyo waayo waa lagu sheegay laguma duuli karo bini aadanna caqiidadiisii ehelkiisii awoowayaashoodii 150 sano ka hor dhintay lagu aflagaadeeyo dhibaato waayo runtii dhibaato waayo waxaan runtii aad idinkaga mahad celinayaa fursaddan iyo casumaadda aad ii soo gudbiseen waxaan idinkaga mahad celinayaa hiilada laakiin runtii way u baahan yihiin gabdhaha Soomaaliya inay isku hiiliyaan ay maaragtay isgarab taagan yihiin iyo inaad runtii wacyigelinta barisaan oo mar walba aad tirahaan aad u feejignaataan waxa waddanka ka dhacaya laakiin idinkoo critical eyes iyo aad ku fiirisaan qofkan saa buu yiri laakiin adiga informationka adiga raadi kadibna maarta go'aankaaga adoo laakiin wax ku qaata marka taas waaye runtii aniga aad iyo aad aan uga xumahay ehelkeygii iyo wax soo gaar laakiin aniga wixii igu dhaco dhib ma laha sababtoo ah anaa soo galay siyaasad anaa go'aansaday inaan ma aragtay wax ka qabto waxa jiro fursad ilaahayna ku timid ilaahay tiisay ku timid marka taas waaye qof walbana runtii inuu ku dhiiraa laakiin wasaaraddu waa wasaaradda dhib badan marka idinkana hiisadin baa idinkaga mahad celinaya laakiin kolley mar walba waxaa loo baahan yahay in ma aragtay la helo wax la hubsado in la hubsado iyo ma aragtay inaan la baqino ma aragtay ilaahay baa nafta qaado ma xaq hadii lagu taagan yahay in la baqo ma bahaba waxaan rabaa abukaata inuu wax ku sii daro gabagabadii baan ku dhownahay abukaata tahliil dadkan baasee lacagayogayna siinaya ee leh isdila oo iskufsada oo isbaabiya xaggay joogaan aan iska celinay maxaanse isaga celin la'anahay miyuudka iska saar ma ku maqleen Soomaalidu waxay inta badan mathal u soo qaadataa gorayada markay khatar gasho ciiday madaxa gashataa laguma jeedana waa isla nimankan aytamaayo haddii waxaan karaa anuu ahayaa koobigi inaan publicly faafiyo laakiin maadaama uu yahay waxaan u qabtay wasaarad qabyo qoraal ahaa sharci ahaan qabyo qoraal golaha wasiirada haddii la faafiyo dad badan horta waa ceeb marka waxay sheegaan waxaan ahaynaa taas waa kow
midda labaad annaga ajnabi wax nagama hadlayn burburka yaalla soomaaliya samaysa hal qof iyo laba qof khaldan soomaali ma jihin karto halka problemaan qabnaan kuu sheega diin la yidhaahdo qabiilaan qabnaa waa isnacabnahay macno darra ah waan soconayn ani reer boondheerana waxaa igu dareen markii ugu horreyso qabiil lay weydiiyey wallahi werigii markaasaa igu horreysa qaadiyaan ahay anoo guddoomiye maxkamada lay magacaaba waxaa la yidhi qola maata allahu naxariista aabbahe ugu dambeeyana ayaama kadibna waxaan alaaba yaryar oo reer boondheeraha cunaanaa cunay shabad weynaa dhash laygu siiyo waxaa ka mid ah waxyaaba yaryar oo xalaal ah lakiyaa waxaa ka mid ah caloosha iyo madaxa iyo keliyaha iyo meelaan laga cunno waxaan ka ahaa guddoomiye maxkamada marka magac been hay baxsheen markii dambena iyaga baarbaartay waxay raadinayeen qabiilay tan aan rabo waxay tahay inaan sheego waxaas dhan soo maray wax kale maaha soomaalida cadow wax ma yeelin cadowyadii ugu waaweynaa ee dad soomaaliyeed soo maray horta waddanka ugu horreeyo diyaarada lagu garaacana ninka lagu garaacayna quuday shisheeya kaalmeynaya lama dhihi karo qoryo yar oo kuwa la cabeeyana waa watay waana dagaalamaya xorriyaddii 60-kii qaadanay 60-kii xataa kacaankii yimid kasta ay ku yimaadeen inqilaab haddana wax ma hadlayn wax badan ay hagaajiyeen jaamacadii ay dhiseen soomaaliga ay qoreen bacaad celintii ay sameeyeen wax badan ay sameeyeen burburkii kadib maxaa noo dhashay marka darsi cusub aa noo soo baxay horta 4.5 aan noqono soomaali miya taas waa kow labo nin kastaba ninka kale hadduu reerka leeyahay inuu caayo waa u bannaanta waxaa kaloo kaaga sii daran ninkii jagadoona qofka xataa qabiilkiisa u cayna asagaana undermine garaynayo marka runta loo soo dego fiicna waxaan ka hadlayaa behaviorska dhashay dagaaladii ka bacdi wax laga hadlaya malaya qofkaas u hormari kara xataa waa loo beegsana waxaan rabaa hal shay in la ogaado soomaaliya dad muslin ahana qof kastoo muslina wuxuu ogyahay hooyaday waxay dhihi jirtay qofaan dhalan ma dhinto qof kastoo dhashay ee noolow inaad dhimanayso ilaahay hortiga eegisoo ama waxaad doonto samay aakhiradaadana qab adduunyada laftigeedana dadaan ku dhaafayno ku cafinayn aad wax ka hadlayn doontaa waxaan leeyahay dhaqan xumadaas la iska daayo dhibaataa soomaaliya ka jirto dadka falalkaas geysanayo gabadfalkaana soomaali waayo waliyul amrigaana laga rabaa soomaaliya inuu inta sharci soo saaro waxaan shuruucdii hore ku qornay wax laga qabto taas keliya maahana xataa wax ka sii badanaa jiro wax ka qabasho u baahan dadkoo dhanna inay u istaagaan waa maxaa yeele haddii garaadkii dadka u noqday in la naadiyo maxaa dad culamo isku sheegayo ay naadiyaan waxaysan hubsan ayad qur'aan aan dhahayso wax oo naba kuu keena faasiqa ilaa aad ka hubsato ha faafin dadkii lagu yiri ilaahayga qaadirkaa ku garan waaye war ii keena waxaa la sheegaya maxay dhihi waaye ilaahay bay ka cabsadaan waay gabadha dadaashay ee dadka masaakiinta gabadfalka lagu samaynayo rabta inay sharci u samayso qaarkoodna aysan xataa dowladda walaa cid ajnabi aysan lacag ku siin war ma wayna rag ahayn ma waysan dad ahayn ma waysan ilaahay ka cabsanayn midda labaadaa jirta soomaaliya waxay ku hagaagaysaa sidaan oo kale public in loo hadlo nin kastaba keligiisa hadlayo anaa ilaahay ka wakiilka ah midna waa idiin sheegaa majlis alculamaa dad waaweyn oo wada aqaana waa ku dhugan waxaa laga rabaa waxay rabaan ay isleeyihin ama wax qaldan yihin ayaga ra'yi keliya leeyihin baarlamaanna maaha golo wasiirna maaha golaha garsoorkana maaha saddexda awoodooda dowladda kama tirsana dad culamaa ma yihiin ilaahay ma ogyahay horta ha u dhaqmaan inay wax saxaan maxaa yeele aflagaadu shareecada islaamka ma qabto qof hadduu qaldan yahay in la waco la waaniyaa shareecada qabta waxaan rabaa sharciga islaamka in lagu dhaqmo waxaan kaloo rabnaa dhammaanteed inaan aflagaada lagu xallin dad masaakiin oo gobolfad ku socdo tan iyo dagaaladii sokeeye iyo ka hor waa in la joojiyaa
qofkan joojin is hortaago aakhire ilaahay waa ciqaabo waana mahadsantiin waa tahay waxaan gabagabadii baan maraynaa cabdow maxaad ku dari lahayd intaa su'aalihii maadaama la wada guud maray aanu soo diyaarsanay oo la kafargareeyey waa soo qurqurxisanay laakiin already waa la dul maray marka waxaad ku darsanaysa walaal بسم الله الرحمن الرحيم horta waxaan ku darsanayaa marka hore mar labaad haddana waxaan u mahadnaqayaa wasiir deeqa iyo garyaqaan tahliil iyo dhammaantiinba anigu waxaan ku darsanayaa oo arrinka aynu ku celcelinay ee dadkeennu marka la eego xagga hubsiimada wasiirkuna ay ku celisay adigu fatxiyana aad ku celisay garyaqaankuna uu ka hadlay in bulshadeenna waxaad ku arkaysaa in marka wax ay maqlaan iyagoon hubsanin oon aan akhriyin sharcigii oo qoran oo yaalla ma akhriyayaan anigu markii sheekadana bilaabatay rag badan baan weydiiyey sidaa wasiirku ay sheegtay oo dhalinyaro ahaa waan weydiiyey waxaan ku idhi maxaa jira oo sheekada marka ii sheegay waxaan ku idhi ma xagee ku qoranta ma meel bad ka akhriday mid waliba wuxuu yidhi maya caynkaasaa laygu yidhi marka waxaan ku idhi qofka kugu yidhi inuu run sheegayo iyo inuu been sheegayo maxaad ku kala caddaynaysaa marka wuxuu igu yidhi deniyo ilaahay baa iga og laakiin waa sidii dadku ay hadal hayeen waa dhammaantood waxa weeye waa wax mala awaala oo aanay hubin ayay dadkeena u badan yihiin marka dadkeena in wasiirku dhow jeer ay ku celisay dhammaanteena aynu sheegnay in waxa la akhriyo wax akhri wax hubi waayo aakhirad dembi bay kugu tahay waa lagu qabanayaa wasiirkii oo dadaalayso dad masaakiina oo dulman oo u dadaalayso oo weliba dhalinyarta waxaa wadaay cidda la difaacaya waa walaashaa waxaa la rabaa berrito suuqa inay nabad ku marto ilmahaaga yari inuu iskuulka nabad ku tagaa la rabaa dhibaatada ku dhacday jiiraankaaga iyo ummadda Soomaaliyeed dhibaataysan meel kasta joogtaa way ku dhacaysaa ilmahaaga haddaad is leedahay ku iman mayso ilaahay baan ku dhaartay horena waan uga hadlay way ku imanaysaa wasiirka iyo garyaqaankuna wax kale ma rabaan ilmahaagaasay doonayaan inay difaacaan inay wax ku dhicin adigu markaa dadkii ku difaacayay in nin kale intuu wax kugu shubto kugu yimaado kugu diro dan gaara isagu lihi miyaan caqligaagii iyo karaamadaadii la caayinin markaa adiga markaan waxaan la horta dadku waxa hubsadaan waa koobaad qodobka ku soo gabagabaynaya labaadna waxa weeye qodobka lacag baa lagu siiyaa iyo gaala wax siisa iyo dhammaanteen wayna ku dhacday fatxiya absiya way ku dhacday aniga dad baa igu yidhi idinkana dee hadalkii labada waaba rubaataa marka taasina waxaad arkaysaa in sheekadan dhawaan la bilaabay oo markaad iminka anigu waan u doodaa xuquuqda dumarka iyo xuquuqda carruurta iyo dadka dulmanayaasha oo dhan markaan doodo ayaa waxaa lagu odhanayaa mashruuc baad soo qaadatay haddaan anna waan isogahay ilaah baa igu og markaasa waxaa ii caddaatay haddaan anigu maqlaba qof la maagayo la leeyahay mashruuc buu soo qaatay waan qoslaa waxaana waa tii lagugu lahaa cabdow marka anigu halkan anoo ka hadlaya iminka siyaasina ma ihi siyaasadda ma gelayo umana jeedo wallaahi alcadiim inaanan walaa hay-ad walaa gaalo walaa cid aanu israanay aanu jirin dulmigaa lagu hayo dadka masaakiinta ee walaalaheena ilaahayna aanu ogolayn ee diinta ilaahayna ka soo horjeeda taasaanu u wada dagaalamaynaa waxaanan idinku soo gabagabanayaa waynu u adkaysanaynaa waayo waa markay iska hor yimaadaan xaqa iyo baadilku ayaa dhaqankaa uu leeyahay iyo beenaha fara badan marka waynu u adkaysanaynaa waa dadkeennii dad khaldan baa ku jira idinkana ilaahay khayr ha idin siiyo waanu idin garab taaganay 100% insha allah dhammaanteenna ilaahay ha nagu guuleeyo waana mahadsantihiin ilaahay khayr idin siiyo maasha allah aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal cabdi daa'uud maryanay maxaad ku dari lahayd dabadeetana waxaan u gudbinayaa deeqa iyo tahliil waa mahadsantihiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa abukaataha garyaqaanka waan ku faraxsanahay inaan maanta la kulmo iyo wasiiradeenna marka waxaan dhihi lahaa aniga dadka Soomaaliyeed ugu baaqi lahaa hala iska jiro dhiig islaan oo soo wareegta ma dhumo dadka maanta raba inuu duudsiiyo dhibka ku dhici hayo haweenka iyo carruurta horta carruurtaas la kufsanay macal wiilashaas maxay aheeday la fuulay dabeel ma fuulahayso dad kaloo meel kale ka imaado fuulahayana malaha marka haddii inaan isweydiinay ay tahay su-aasha Soomaaliya horta khaniis meesha ma ku jiraa mise maba jiro taas waxaan u malaynayaa dhib horta Soomaali maanta dhex yaalla waay sharcigan ama hindise sharciyeedkanne mid arrintaas khuseeya ma aha wuxuu khuseeyaa kufsi ama wiil hala kufsado ama gabar hala kufsado ama qof weyn hala kufsado kufsigu ka hortegi hayaa marka kufsigan hadda waxaan aragnay tusaale dad gang rapes gang oo intay is aruursadaan 5 iyo 7 ayagoo qof kufsanayaan dadkaas dadka kufsanaya
haddii ay gabar waayaan oo wiil waayaan oo berritay ay kufsan karaan dadkan waaweyn bay maxay usoo dhici karaan marka qof fiyow runtii ma jiraa maanta oo isdhihi kara aniga waan ka badbaadsanahay waan ka fiyowahay arrintaa ima soo gaarayso qof ku fiyow ma laha hal kufsi meeshuu ka dhacay adigana waxaad ku jirtaa khatar marka inaan kulligeen xumaatada ka hortagna waay waa arrin diiniyan ah waa arrin nala faray haddaan muslim nahay nala yiri waxaad ka qaban karto hadda maanta wasiiradda iyada gacanta dadka gacanta kaga qaban kari lahaa bay ku jirtaa maxaa yeelay arrintaa ay soo qondayso wax ka qabadkii buu ka mid yahay annagana dadkii afkiisa kaga hadli lahaa oo maxaa yeelay tabarteen intaas bay noqotay laakiin soomaali waxaad moodaa inaan ama dacaayad ama niyada aad ka nacdo maanta iskaga dulqaado oo dibka ha ku haasto oo ku samar oo sidii waxayba ay ku taadaan nolosha lagu qoray arrintaas iyada ah mana aha dad muslim maadaama aan nahay dad ilaahay maxay eeday siiyey aqli iyo xoog labadaa wadaan noo bannaan ama gacantaada wax ku qabo ama codkaaga maxay eeday wax ku reeb marka waxaan wax niyo laga nici kara maaha arrintan in ay noqoto sharci hirgala oo qaanuun oo lagu tilaabo qaado oo lagu ciqaabo dadkan soo waashay ee bahaloobay ee u soo kacay inay maxay ahayd mustaqbalkii ku ciyaaraan aad iyo aad bay Soomaaliya ugu baahan tahay waa loo baahan yahay meel walbo la joogo laakiin haddii laga horjeedo dadka markay ay u heelinayaan su'aasha aniga aan rabi lahaa inaan miiska uga tago yaa loo heelinayaa qofkii ka horjeedo maxay ahayd dadka wax lagu ciqaabi lahaa qofka ka soo horjeedo oo dacayadeynayo oo dadka intanoo dambi saarayo annaga hadda waxaana lagu dhigaya facebooka yacni dadka waxaad u hadli haysiin maxay ahayd waa laydin soo dirsada ma malayn kartid marka dadka ka soo horjeedo in sharcigan la ansixiyo oo buuqa ka dhigayo oo masraxa la siiyey ee ilaahay ayaga ku maneyste masraxa ay haastaan ku ciyaarahayaan ay ku dheelahayaan ay ka been sheegahayaan ayaga waxaan la yaabanay maxay u hiilinayaan wuxuu yahay ma dembigay marka ay la jiraan ma waxay leeyihin kufsiga ha socdo waxay leeyihin ilmaha sidan ha loo kufsado oo kufsiga saan ha kusii socdo miyaysan ka danqasanayn miyaysan caruur lahayn miyaysan maxay ahayd ilmaha waxa la yeelay ay arkin mustaqbalka bulshada Soomaaliyeed in maxay lagu ciyaarahay marka aniga waxaan dhihi lahaa arrintan waa arrin jihaad ah maalintan ka dhageystay live adoo fadhido wasiiradda aad baan ugu farxay markaad tiri marti ninaan ugu ahay malaha waa run qofaad marti ugu tahay malaha ilaahay baad hortiisa ku dhaaratay waadna ka soo baxday meeshaada haddii la baasmariyo qof kale oo u dhaartay yaa ama shaqadiisa qabsan doona ama aansa qabsanayn adiga waad samaysay annagana maxay ahayd waan ku garab taagannahay wax allaale iyo wixii xuquuqul insaanka u taagan baan diyaar u nahay annaga inaan sidaa oga qaadna marada oo maxay ahayd aan had iyo jeer saa oga hadalno diyaarna uma nihin inaan aamusno maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin war isgaarsiintan ilaahayna siiyey oo ninaan ka barinayna aysan jirin qof aan marti ugu nahayna aysan jirin qof aan oga baqaynana aysan jirin marka waa ku mahadsan tihiin allah maxay ahayd ha idin barakeeyo ilaahay maxay ahayd ha idin sii cimri dheer oo cibaado leh oo aad ku sii dadka dhibanaha ee codyarka ee codadka aan lahayn bulshada dhexdeeda aad ugu hadashaan oo ugu doodaan oo xaqooda maxay ugu istaagtaan aad iyo aad u mahadsantihiin thank you Marian and tahliil adaan ku gudbinaya walaalkay maxaad nagaga tagi lahayd waxaan idinku mahadcelinayaa dadaalka aad samaynaysaan maxaa yeelay xaqa dad badan oo u hadla inay dhashaan waa qasab Soomaaliya waxay u baahan tahay gardarro oo xididda leh oo korta ayaa loo bartay gar aamusisa waxay imaanaysaa markood dadka ay intay xaqiiqda arkaan waxa la sheegaya ay wada beeniyaan tallaabada aqaadeen allah ay idinka siiyo ajar maxaa yeelay waxay dan u tahay dadka masaakiinta waxay kaloo iyo jabka ka joojinaysaa kuwa xukuumad anigu ugu dhigay dowlad shaqaale dambe ma ka noqon karo yaadi sharcigana waa dhaafay xildhibaanna ma noqonayo laakiin dadka noqon doona waxay u baahan yihiin in garab la siiyo waxay kaloo u baahan yihiin in garab lagu siiyo wixii xaq ah waxay u baahan yihiin dadka masaakiintaan isdifaaci karina in la difaaco waxyaabo badanaa jira oo lagama maarmaan ah in dadka loo qabto dowlad burbur ku dhacay ee aan demobilization la samayn oo qof kastaba uu xoog leeyahay ilaahana xoog leh oo qof kasta wuxuu raba sheegayo oo aan loo raacanayn dhibaatadeeda ay leedahay dadka waxaa samaynaya hal shay u sheegaya maalin kasta ciid maaha
maray imaanaysaa in sharciga kuwa dheeldheelaya oo dadka dulminaya qabto waxaysan hubin oo dambe yaysan sheegin sheegista ma joojin waayin hal shay nagu khasbayn Soomaaliya wax lagagama qaaday qofkiisa yiraahdo meelaan Soomaaliya hena ku daaweyn aniga weliba barsamay talaabana laga qaadayo ajnabiga sheegaya mar labaad ku soo celiyaan waana maatantii cabdi daawud baan xalay ka wada hadlayno wuxuu yiri maalin baa dhici doonta ajnabiga ay leeyihiin waa dumarku gaala ay wataan gaala soo adeegsatay maalin baa dhici doonta ay ku khasbaan in ay ajnabiga soo adeegsadaan illa waxa mahmaha baa jirta tiraahda Ingiriisiya the enemy of my enemy is my friend ya cadowgaygu waa saaxiibkay xataa cadowgaygu yahay marka already maanta waynaga aragno oo way nagu dhacaysaa inaynu marba reer isu soo kaxaysano nimankaana sameeya annagu ma sameeyno annagu ragba hadda diidna inaan abukaata tahliil ragga kelmadda ragga la yidhaahdo ee la leeyahay rag baa wax kufsaday rag baa wax dilay afka soo duubtay war rag wax ma dilo waxna ma xumeeyo waxna ma kufsado kelmadda lafteeda hadda dictionary waa dambiilayaal waay dad khasiisa waa niman orgiyo ah waxay doonaan sameeyay rag ma deeqa walaashay adaan kugu gabagabaynaya maxaad nagaga tagi lahayd waxaan idinkala tagaa runtii mahadnaq iyo dadaalka aad wadaan runtii waxaad tihiin gabdho runtii arrin dhacday wasiirad ku dhacday haweena oo portfolio haween arrinteeda haysto idinkoodan garanaynin inaad runtii arrinta u guur gashaan soo ogaataan haddana aad maaragtay solidarity iyo garab istaag siisaan waxaan idinkaga mahad celinayaa hawshaas saas oo kale inaad wadaan intii naga dambeeyo mar walba inaad saas gabdhaha u garab taagnaataan howlaha society waxaan ku noolnahay runtii dhibaatadu iska badan tahay ka shaqaynteedii howlaha ka shaqaynaynana ay dhib badan yihiin gabar kasta oo maaragtay meel noo joogta waa mid annaga naga mid ah waa inaan fiirsanaa waa in aan maaragtay gadaasheeda taaganahay marka runtii taas ayaa aan idinku maaragtay mahadnaqayaa inaad sii wadaan intaad suugiseenna ka badan aad maaragtay meel kasta gabar Soomaaliya joogto inaad maaragtay sidaas ugu hiilisaan annagana aan idin hiilino sidaas ayay runtii gabdhaha Soomaaliyeed ay ku gaari karaan horumar waxaa jirto shaqo yar hadda aan qabanay oo survey suubina 10,000 oo haweena oo aan ka qaadnay survey waxaad runtii dareemaysaa waxaad arkaysaa in ay breadwinners ka yihiin meel walba ayagii ay dakhligii familiga inta badan soo gelinayaan haddana maaragtay ay maaragtay dhibaato ku jiraan oo ah in oo maaragtay aysan ka qaybgalkoodii yar yahay fursadahoodii waxbarasho ay yar runtii shaqo badan ayaa noo taala idin taala annaga noo taala si ma gabdhahaas yaryarka ee waddanka joogo inaan wax u qabano oo aan maaragtay capacity kasta aan u qarno iyo darajo kasta aan leenahay marka intaasaan runtii idinkaga mahad celinayaa mar walba dhegtiinu ha dheeraato dhegaysta falanqeeya spacekan ballaariya marka waxa waaye Soomaalidan runtii waxaan aaminsanahay dadku markay isbartaan wada hadlaan mowduuca laga wada hadlo in uu shakiga u yaraanayo marka runtii waxaan oo kala u baahannahay oo maaragtay dadku isku weydiiyaan waddan 30 sano dagaal ku jiray oo isku dhayaan dadka dhan kala shakinayaan bahashi paranoia la wada qabo laakiin runtii aniga waxaan ugu faraxsanahay dadaalkan oo maaragtay aad suubinaysaan cabdi daawud asagana garab taagnaa oo gabdhaha walaalaha ah intaas soo jiidan karto waxaan mar walba u baahannahay gender champions marka oo mar walba maaragtay na garab taagan I'm sure qof walbaba aabihiis iyo hooyo iyo maaragtay walaalihiis inay saas u garab taagan yihiin laakiin qof banaanka soo istaago waa arrin oo maaragtay aad muhiim u ah marka intii waa idin mahad celinayaa dadaalkiinana sii wada mar walba dhagaysta
dadka ku wacyigeliya inay wax dhageystaan inay wax akhriyaan inay maaragtay wax hubsadaan maaragtay waddankaas shaqo badan u baahan yahay gabdhahana runtii gabdha aad u dadaalo waaye laakiin waxay u baahan yihiin garab taag in la garab taagan yahay waa dareemi kartaa qof wasiir haddii saan loo galayo maxaad isleedahay gabadha yar saxaafadda ee ka shaqaynaysa maaragtay xafiisyada dowladda ama xafiisyada privateka waa dareemi kartaa culayska saarnaan karaa ee la aamusnaan karto marka waxaan u baahanahay dad in u istaago dhaho dee waxaas ma jiraan oo maaragtay courageka iyo maaragtay yeesha marka wax alla waxaan qaban karnaan qabanaynaa inta maaragtay na garab soo istaagtana waan ugu mahadcelinaynaa laa shukr cala alwaajib runtii shaqo aan u bareernay aan qabanay marka wax oo saan sheegay marti kama ihi waa mahadsantihiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa tahay waa gebagabadii cabdi daa'uud keliya maaha inamo badan oo diyaara oo rag ah ayaa buuxa oo nala soo xidhiidha oo na garab taagan oo noo diyaar ah inayna baritaaraan inayna baraarujiyaan inayna barbar istaagaan iyo inay xaqa u dagaalamaan waana u dagaalamaynaa kana aamusi mayno dib dambe sheekadaasi waa dhammaatay waxaanan leeyahay oo really I'm disappointed waqtigaa inagu intaa ka badan dadku aad buu ugu sii dheeraanayaa abukaate tahliil wuxuu ila wadaagay markii aynu bilaabaynay arrintan kaloo aad iyadana looga dhawaajiyay oo lama ogola da'da guurka 18 baa laga dhigay in lagu guursan karo waxaad ii sheegtay 18 ku abukaate inay ku qoran yihiin dastuurkii Soomaaliya ee hore Soomaha ها هذا وحويان دادي قانقارك هذا 15 تي إسلام كتاي يقفكي ديار واحد إنه 18 كجورسدو أديكو قانقار ويا قانون كان وحكو قرني أنا بقول يدوان وآخرنا وقانقار وحكو قرني wax badan oo la iska waraysto waa buuxan weyn isu soo noqon doonaa laakiin waxaan idin kaga tagay aniguna haddaan fadhiyo cabsiye ahay war dadka wasiirada iyo culimada iyo maaragtay caamaba leh ummadda Soomaaliyeed war dulmiga marka laga aamuso waad aragtaan oo dulmiga markaad ka aamusto la jaal baa tahay dulmiga nin Martin Luther King la oran jiray waddankan dadkii xornimada madowga u soo dagaalamay baa wuxuu oran jiray ugu dambayn waxaynu xusuusanaynaa ugu dambayn ma xusuusan doona buu yiri in the end we won't remember the actions of our enemies but we will remember the silence of our friends ugu dambayn waxaynu kuwa aynu ka fikir doonaa ama aynu xusuusan doonaa mar walba ma aha cadowtinimada cadowgeenu uu inoola dhaqmay ee waa aamusnaanta kuwii aynu asxaabta moodaynay ama friendskeena moodaynay marka sidaa ay walaasheen Marian sheegtay ee walaalkeen Cabdi sheegay kulligan aynu ka wada dhawaajinay iyo abukaate tahliil marka aad xaqdarrada iyo gardarrada ka aamustid ee aad tiraahdo maxaa iga galay qof kale ku dhacaysaaye ogow adigana inay ku soo socoto islaamnimaduna sidaa ma aha waxaan aad iyo aad uga xumahay wasiirada iyo xildhibaanada aamusan maanta tan oo kale wax laga aamuso ma aha ee gabadhaas adigu ma arkin bade abukaate tahliil mooyaane iyo demo iyo qoyskeeda mooyaane cid kale u hadlayso u soo baxday oo war ilaahay ka baqa ma arkinba marka waxa weeyaan maanta ninkii khayrkii loo xiiray oo soo qoyso adiguna maanta markaad sidaa uga aamusto xaqa adna maalintaadu way soo socotaa ogow ilaahay kuwii xaq garta haynaga dhigo hayna waafajiyo xaqa khayr iyo barwaaqaan idin rajaynaya aad iyo aad baa u mahadsantihiin isu soo noqo dambe oo xiisa leh farxiyo wax yar aan kaa galo yar aan ku daro adoo mahadsan runtii way jiraan dad badan oo arrintan nagu garab istaagay kuwa ka badan waan sugaynay laakiin way jiraan dadaanan ku garanaynin oo sida idinkoo kale marka runtii intoodaba ajar Allah ka siiyo marka laakiin way jiraan dad dhalinyaro badan oo social mediaha marka Soomaalidu waxa waaye way kala duwan tahay maaragtay dad wanaagsan oo maaragtay runtii dhalinyaro ahoo raba inay wax bedelaan oo raba inay maaragtay mustaqbal fiican noqdo way jiraan marka intaba ammaantoodu way leedahay ajar Allah ka siiyo annagoo dhan marka intaasaan ku darsan lahayo mahadsantahay allahumma amiin ma waaruno dawuu buuxa hiil anigaba dad badan baa ila soo xiriiro hiiliya wax weeyaan had iyo jeer waxa qaylo dheer dadka xun baa qaylo dheer oo qayladoodu meel fog gaadha waxa la yiri wanaagu intuu rafanayo uu isleeyo orod uu cad culus yahayo by bento inta meelood ka soo wareegtayo oo maaragtay meel walba gaadha marka
وسيدا ضد بدنا ونعكسن باكرة وحيو باهن يهينون إن ماركتي دواق بطو وأنا بدنا يا إلهي إذا كي خير يبرواق أن نرجعني عادي أدبا وما تنتهين وسير دقة إيو قريقان تحليل الله يذن بركيو سيدا ينا بتقليو السندين